Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada qaybta afraad ee taxanaha Falastiin sheegashooyinka Sahyuuniyadda innagoo ku salaynayna sheegashooyinka lagu sheegay Towraad. Yuhuudda Sahyuuniyaddu waxay sheegaan inay yihiin dadka asal ahaan ka soo jeeda Falastiin iyo in dhulkan ay iyaga oo keliya leeyihiin. Cid kasta oo dhulka Falastiin deganna ay Yuhuuddu uga soo horreysay, waxayna u arkaan inay gumaysanayaan dhulkii reer binu Israa'iil. Sidaa daraaddeed, cid walba oo aan Yuhuud ahayn oo degan dhulka Falastiin waxay u qalmaan in laga caydhiyo. Yuhuuddu daraasado badan oo taariikheed ayay sameeyeen si fikradooda ay wax daliil la taaban karo ah ugu helaan, laakiin daraasadahaasi way ka fog yihiin hannaanka caalamiga ah ee darsidda, maadaama ay iska indhatireen tiro badan oo caddaymo taariikhi ah oo ay dhulka Falastiin ka heleen, kuwaasoo caddaynaya dadkii asliga ahaa ee dhulka Falastiin. Caddaymahaas haddaan qaarkood isdul taagno waxaa ka mid ah: 1. Innagoo maanka ku hayna in Nebi Muuse calayhi salaam yimid qarnigii 13aad Nebi Ciise ka hor, way fududahay in la beeniyo sheegashooyinka Yuhuudda. Xaqiiqdii, taariikhda rasmiga ah ee Falastiin waxay ka soo bilaabataa waqti aad uga fog xilligaa. Raadad taariikheedyo laga helay Falastiin waxay muujinayaan in dhulka Falastiin la deganaa ilaa bilowgii waqtiga loo yaqaano Stone Age, 500,000 sano ilaa 14,000 sano Nebi Ciise hortii. Raadadku waxay caddaynayaan in dadka ay sii deganaayeen dhulka Falastiin ilaa da'dii dhexe ee Stone Age-ka, 14,000 sano ilaa 8,000 sano Nebi Ciise hortii. Markii ilbaxnimadii ugu horreysay ee taariikhda aadamaha ee loo yaqaano ilbaxnimadii Natufiyaaniyiinta ay bilaabatay, Natufiyaaniyiintu waxay magacooda ka qaateen godadka ku yaala aagga waqooyi ee maanta loo yaqaano Al-Qudus. Natufiyaaniyiintu 8,000 sano Nebi Ciise hortii waxay yagleeleen Jericho oo ahayd magaaladii ugu horreysay ee aadamuhu dego. Taariikhda la hayo ee Falastiin waxay ka bilaabatay hijradii kooxihii Semitiga ahaa ee jasiiradda Carabta. Kooxahan waxaa ka mid ahaa reer Amuur, reer Kancaan, iyo reer Yabuus, iyo reer Finiyaquun oo dhammaantood ahaa kooxihii reer Kancaan. Reer Kancaan iyo in yar oo reer Yabuus ah waxay degeen dhul aad u ballaadhan oo buuraha Falastiin ah. Finiyaquuntu waxay degeen waqooyiga Falastiin iyo Lubnaan, halka reer Amuurna ay degeen webiga Urdun, yacni waddanka maanta loo yaqaano Urdun. Kancaaniyiintu waxay noqdeen bulshada ugu badan ee Falastiin. Sidaa daraaddeed, dhulkan waxaa loogu magac daray iyaga dhulkii Kancaan, magaca oo xitaa laga helay kitaabkii Towraad. Reer Kancaan waxay dhiseen in ka badan 200 oo magaalo iyo tuulooyin, oo ay ku jiraan magaalooyinka Shechem oo hadda loo yaqaano Nablus, Caka, Xayfa, Stuud, Beersheba iyo Beytulaxam. Godod laga qoday goobihii ilbaxnimadii hore ee Syria ee loo yaqaano Aqaari ayaa daaha ka qaaday qodaallo badan oo wax badan looga ogaaday reer Kancaan diin ahaan iyo khuraafaadkii ay aaminsanaayeen. Waxay aad ula mid ahaayeen khuraafaadkii kitaabkii Towraad qaybtiisii lagu been abuurtay, taasoo soo koobtay in aqoon-yahanada Yuhuuddu ay inta badan soo deliishadeen suugaantii reer Kancaan markii ay dib u qorayeen kitaabkii Towraad. Laakiin Yuhuuddu waxay markan Towraad u nisbeeyeen naftooda ama xitaa xagga Eebbe. Xaqiiqdii, macbadka Sulaymaan ee lagu sheegay Towraad wuxuu aad ugu eg yahay guriga Bakaal oo ay reer Kancaan ka dhiseen isla magaalada Gaza 2,600 sano Nebi Ciise hortii. Bakaal reer Kancaan waxay aaminsanaayeen inuu ahaa ilaahoodii bacriminta. Midda labaad, Nebi Ibraahim calayhi salaam wuxuu dhulka Falastiin yimid qiyaastii sanadkii 1900 Nebi Ciise hortii. Marka Yuhuuddu ka sheekaynayso sheekadan, Towraad wuxuu ugu magac daraa aaggan dhulkii Kancaan, isagoo qiraya jiritaanka ilbaxnimo ka jirta dhulkan ka hor xitaa imaatinkii Nebi Ibraahim calayhi salaam, oo ahaa awowgii ay ka soo farcameen Carabta iyo Yuhuuddu. Wiil uu awow u yahay Nebi Ibraahim calayhi salaam oo ahaa Nebi Yacquub calayhi salaam ayaa ahaa nebigii ay Yuhuuddu ka soo farcantay. Waxay isaga iyo carruurtiisu ka haajireen dhulkii Kancaan iyagoo u haajiray Masar, halkaas oo ay joogeen ilaa sanadkii 1250 Nebi Ciise hortii, ka hor inta uusan markii dambe Nebi Muuse
calayhi salaam ka soo kaxaynin reer binu Israa'iil dalka Masar oo uusan dib ugu soo celinin dhulkii Kancaan. Marka saddexaad, taariikhda Yuhuudda ee Falastiin waxay soo bilaabatay intii u dhaxaysay 1250 ilaa 1000 sano Nebi Ciise hortii. Yuhuuddu waxay ku guuleysteen oo keliya inay degaan dhowr goobood oo ka mid ah dhulka Falastiin, sida agagaarka magaalada Qudus iyo waqooyigeeda. Laga soo bilaabo waqtigaas, boqortooyooyinkii nebiyadii Daa'uud iyo Sulaymaan, nabadgelyo korkooda ha ahaatee, ayaa bilaabmay, taasoo calaamadaysay bilowga dhabta ah ee xukumidda Yuhuudda ee dhulka Falastiin. Xukunka boqortooyada labada nebi wuxuu socday oo keliya 80 sano, intii u dhaxaysay 1004 ilaa 923 Nebi Ciise hortii. Tan afraad, geeridii Nebi Sulaymaan calayhi salaam kadib, 12 qabiil ee Yuhuuddu waxay ku murmeen cidda carshiga qaadanaysa. Yuhuuddu waxay markan u kala qaybsameen 2 boqortooyo. kow, boqortooyada Israa'iil, intii u dhaxaysay 923 ilaa 721 Nebi Ciise hortii. 10 ka mid ah qabaa'iladii Yuhuuddu waxay ka soo horjeesteen in Raxbacaam oo ahaa wiilkii Nebi Sulaymaan uu boqor u noqdo. Taa beddelkeeda waxay door bideen in Yorbicaam oo reer Efraayim ahaa uu boqor u noqdo, waxayna aasaasteen boqortooyadii Israa'iil, waxayna caasimad ka dhigteen magaalada Shekem, kadibna magaalada Tersa, iyo ugu dambeyntii Samaariya oo noqotay caasimadda boqortooyadan. Si kastaba ha noqotee, boqortooyadan si tartiib tartiib ah ayay u kala jabtay kadib tiro weeraro iyo duulimaadyo kala duwan ah oo lagu soo qaaday, ilaa aakhirkii ay ku burburtay gacanta reer Ashuur oo uu markaa hogaaminayay Sarjonkii labaad, iyadoo ugu dambeyntiina reer Ashuur ay kala eryeen Yuhuuddii 10 qabiil ahayd. Yuhuuddu waxay markan u kala carareen dalalka Ciraaq, Kurdistaan iyo Bershiya, halkaas oo ay kula midoobeen dadkii maxalliga ahaa muddo ayayna degganaayeen. 2. Boqortooyadii Yuhuudda 923 ilaa 586 Nebi Ciise hortii. 2 qabiil ee soo hadhay ee Yuhuudda ahaa waxay taageereen Raxbacaam, waxayna dhiseen boqortooyo kale oo lagu magacaabo boqortooyadii Yuhuudda. Caasimaddii ugu horreysay ee boqortooyadanna waxaa laga dhigay magaalada Qudus. Muddo ayayna boqortooyadani talinaysay, laakiin way daciiftay oo waxaa saameeyey gacmo shisheeye oo xoog leh. Amiiradii reer Ashuur iyo Masar ayaa had iyo jeer ku soo duuli jiray magaalada Qudus, laakiin boqortooyadu way sii jirtay ilaa waqtigii Nabukhadnezzar oo ahaa boqorkii Baabiliyiinta, kaasoo baabi'iyey boqortooyadii Yuhuudda. Boqorkan wuxuu addoonsaday 40,000 oo Yuhuud ah, halka intii Yuhuudda ahayd ee soo hadhayna ay u baxsadeen Masar. Annagoo eegayna taariikhahaas kor ku xusan, waxaa hubaal biyo kama dhibcaana ah in xukunkii Yuhuudda ee dhulka Falastiin uu socday 4 qarni oo keliya. Muddadaas oo ahayd waqti xukunkii ugu dheeraa abid ee Yuhuudda qayb ka mid ah dhulka Falastiin xukunto. Waxaase xusid mudan in Yuhuuddu aysan weligood ku guuleysan inay xukumaan dhulka Falastiin oo dhan. Dhanka kale, awooddii boqortooyooyinkii Yuhuuddu waxay ahayd mid hoos u sii dhacaysay marba marka ka dambaysa, waxaana hadheeyey saameyno shisheeye ilaa ay aakhirkii ka baaba'aan. Xitaa xilliyadii boqortooyooyinkii ugu waaweynaa ee nebiyadii Daa'uud iyo Sulaymaan, nabadgelyo iyo naxariis korkooda ha ahaatee, Yuhuuddu ma aysan wada maamulayn dhulka Falastiin oo dhan. Laga soo bilaabo aagagga koonfur galbeed ee xeebta ku dhow magaalada Yaafa ilaa magaalada Rafax. Tan shanaad, Falastiin ayaa markan ka mid noqotay boqortooyadii Bershiya 539 ilaa 332 Nebi Ciise hortii. Qobruskii labaad oo ahaa imbaradorkii Bershiya wuxuu xilliga Yuhuudda u oggolaaday inay ka baxaan dhulka Baabil oo ay tagaan dhulka Falastiin. Waqtiga tiro yar oo Yuhuud ah ayaa u haajirtay dhulka Falastiin, waxayna degeen magaalada Qudus. Waxaa loo oggolaaday inay ka yagleelaan maamul Yuhuudda u gaar ah dhul 20 kiiloomitir oo laba jibaaran ah oo ku wareegsanaa magaalada Qudus, taasoo ka dhigan 2.8 boqolkiiba badka dhulka Falastiin ee maanta. Yuhuuddii kale waxay ku nagaadeen gurigoodii cusbaa, waa dhulkii Baabil, waxayna u muuqdeen inay halkaas si rasmi ah u degeen oo aysan u soo socon dhulka Falastiin. Sanadkii 332 Nebi Ciise hortii, Alexander the Macedonian
ayaa qabsaday Falastiin waxaana lagu soo rogay xukunkii Helenistiga. Inkasta oo dagaallo istaba joog ah ay ka socdeen aagaggii u dhaxeeyay dhulalkii generaaladii Alexander ku ka talinayeen, haddana madax bannaanidii maamulka Yuhuudda lama arqaladayn. Xukunkii ugu horreeyay ee Helenistiga ee hoos imaanayay Batalimiyiinta, kuwaasoo ahaa amiiradii Masar oo ku guulaystay inay maamulaan dhulka Falastiin laga soo bilaabo 332 ilaa 198 Nebi Ciise hortii. Si kastaba ha noqotee, xaalku wuxuu isbedelay markii Suluuqiyiintii oo ahaa amiiradii Suuriya ay ka adkaadeen Batalimiyiintii oo ay ka qabsadeen aagaggii ay ka talin jireen ee Suuriya iyo Falastiin sanadkii 213 Nebi Ciise hortii. Markay taariikhdu ahayd 198 Nebi Ciise hortii, Suluuqiyiintu waxay ku khasbeen Yuhuudda inay u hoggaansamaan dhaqamada Giriigga iyo caadooyinkooda, laakiin Yuhuuddu way diideen. Waxayna mar kale heleen nooc maamul Yuhuudeed ah oo ku kooban magaalada Qudus. Maamulkaas oo marna quwad lahaa marna tabar yaraa, waxaana saameyn ku lahaa awoodihii ku xeeranaa. Intaa kadib, Roomaaniyiintii ayaa qabsatay dhulka Falastiin sanadkii 63 Nebi Ciise hortii. Roomaaniyiintu ma aysan faragelin maamulka Yuhuudda ee magaalada Qudus ilaa sanadkii 6aad ee miilaadiga. Roomaaniyiintu markii ay la wareegeen gacan ku haynta tooska ah ee magaalada Qudus, Yuhuuddu waxay sameeyeen kacdoon ka dhan ah Roomaaniyiinta intii u dhaxaysay 66 ilaa 70 taariikhda miilaadiga. Laakiin Roomaanku si naxariis darro ah ayuu u caburiyay kacdoonkan, wuxuuna burburiyay Qudus iyo macbadkeedii cusbaa ee uu dhisay Herod. Yuhuuddu mar labaad ayay kacdoon sameeyeen, oo markii ugu dambeysay waxay ahayd intii u dhaxaysay 132 ilaa 135 taariikhda miilaadiga. Roomaanku si kulul ayay uga jawaabeen kacdoonkan, iyagoo ujeedku ahaa in looga hortago xasilooni darro kasta oo mustaqbalka ah oo ay Yuhuuddu keeni karto. Roomaaniyiintu waxay burburiyeen magaaladii ay Yuhuuddu degganayd, waxayna ku beddeleen mid cusub oo laga dhisay deegaanka, waxayna u bixiyeen Alia Capitolina. Waxayna dusha sare ee macbadkii Herod saareen taaladii Jupiter oo ahaa ilaahii Roomaaniyiinta. Wakhtigan, joogitaankii rasmiga ahaa ee Yuhuudda ee dhulka Falastiin ayaa dhammaaday. Xalqadanna maanta intaa ayay nooga eg tahay. Haddii aad danaynaysid inaad daawatid xalqadii tan ka horreysayna, waxaad ka daawan kartaa linkiga hoose. Ugu dambeyntii, ha iloobin inaad muuqaalka like garaysid. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.